عبد السلام يا اسلا جوجتان ها عبد السلام من زمان اسنا قاري وحيري gabar qurux badan baa siiyay uu igu diiday oo ficlan kuma diidinay hooyaday baa la tashtay sheekhan uu maad umuman aad baan gabadha u jeclaa Allahumma barik lana fi luqina ila luqiyadena noo baraka yiri Abd Salam oo waka hade maaragtay gabadha ilaahay ha isku kiin barakeeyo iyo wixii la mid qisa waxay ahayd true history marka nas'ala qoyskeena waxaan rajaynaynaa qoys wanaagsan inuu ilaahay ka dhigo kuwa ubad iyo jiil yani tarbiyeeyo umad badbaadiya dadkii yani anaga waxaan la rabaa inaan tarbiyeyno on keeno ahdaafta guurka way badan tahay kuma soo koobi karnaa halka laakiin hadafkeena waa inuu yahay Allah subhanahu wa ta'ala inaan ugu dhawaano inaan zinada kaga fogaano cifa inaan jiil tarbiyeyno ubad helno ubadka waa hiba min Allah ustaadi marka waa inaan dadaalna sidan waa inaan isku dhanna I wish barnaamijkan wuxuu ku fiicnaan lahaa umadan in la hadlo laakiin inta gaadho waxaan leeyahay si sheergareyso umada kalena hala gaarsiiyo ustaadi hadii aan dib u soo laabano arimaha guurka wanaagsan ama qoyska wanaagsan maxaa ka qayb qaadan karo lan waxa laga yaabaa dad jiw tiro badan oo hadda doonayaan inay guursadaan ama hadda laga yaabaa inay qoys iyo reer leeyihiin laakiin laga yaabaa in ay ka maqan yihiin talooyin ama fikrado ku saabsan si qoyskooda u wanaajin lahaayeen ama u horumarin lahaayeen marka hadii aan tusaale ahaan ku soo qaato kelmad hadda aad ka dhawaajisay oo ah jaceylku waxaa moodaa dhalinyaradu jaceylkii iyo daryeelkii intay isu kaansanaysa yani haasayo ku jiraan ay sii horumarsadeen markay guriga yimaadaana wixii waagi hore la oran jiray ama asqaabtii isku macaamili jiray wuu soo yaraanayaan taas marka waxay keenaysaa caqabad kale oo shaki iyo isfahmo halkaas inuu ka dhasho marka jaceylka iyo daryeelka ma mid hadda loo baahan yahay ama mid in dib loo dhigto hadhowtii maadaama laba waqti isguursan doonaan in ay dhigto jaceyl siiyaan daryeel siiyaan midkay qiimo badan in la hormariyo a good question si kala hadaan u soo koobo su'aashaada waxa weeye jaceylku ma wuxuu yimaadaa guurka ka hor ama guurka kadib mise guurka kadib yiri Abd Salam oo waka hade maaragtay gabadha ilaahay ha isku kiin barakeeyo iyo wixii la mid qisa waxay ahayd true history oo gabar uu siiyay haye hooyaan u sheegay waxaan iri hooyaday Mareykan ku nooshahay bil munaasaba Minnesota wa salaamayna hooyaday qaaliga I wish inay clipkan daawanayso waan u diri doonaa waxaan ku iri hooyo sheekha gabar isiiyay Shaabi Rashiid markaas waxay tiri hooyo diinta islaamka soo ma qabto al haqq liman sabaq qofka yani ka soo horeeyay soo awlawiyada ma laha soo hooyada aabaha xaq kama laho rasuulka soo ma dhihin ummuka thumma ummuka thumma ummuka ani gabar baan ku doonay aan bixiyay maxaan ku iraahdaa sooriyadeeda dahab aan u gaday wax walbo kaliya adiga ina baxdid Dubai si martid Kenya aadid ilaa ay halkaas Mandera aad gabadha soo guursatid baa rabaa wadigayna warbaahin kama sheegin it's my first time maadaama aad weydiisay laga yaabaa dhalinyaro badan inay ka tusaale qaataan ana always dadku waxay yiraahdaan Abd Salam waa tusaalaha nool maadaama guur ka hadlayno waayahay baan iri anigo oo runtii bimaana jaceelkan ka hadlayna soo ma su'aashaadi bay ku khusaysaa jawaabtan anigo ilmeynayo runtii waliga jaceyl ma la ilmeysay baan telefonkii dhigay waagaas mobile ma jirin khadratuni xaafad la dhahan degana waxa isla deganeen walaalkeen Sheekh Kenyawi telefonkii markii aan dhigay runtii waa ilmeeyay wiil dhalinyaraan ahaa yani even markaas aan qangaaray yaraantii baan mas'uuliyad ku qaaday waan iska soo baxay masjid tawfiiq la yiraahdaan imaaday laba rak'aan tukaday ilaah baan bariyay ilaah waxaan yiri Sheekh Abd Rashiid gabar buu siiyay waan ku mahadsan yahay jacayl uu iqabo isoo dhaweeyay oo isaga iyo durriyadiisa ilaa iyo abka ab wa kana abuhuma salihan hooyadayna markii aan u sheegay waxay tiri hooye
anigu gabar baan kuu doonay ee maxaan sameeyaa waan baxay muhandisiin xaafad la yiraahdo oo qaahiro ku taalo oo sheekha quraanka ku duubi jiray waagaas waliba wuxuu duubayay riwaayadan la yiraahdo khalaf an hamza duubayay baan u tagay arintii u sheegay marka anoo ilmeynayo way arkay bimaana wala ii cudur daaraya daawadayaasha waxaan u maleynayaa wahay izid jacayl dartii ma loo ilmeeyaa bimaana jawaabtan u imaanaya qissa waaqici oo dhacday way we don't want anaga dad qaar siday rabaan inaan wax u falanqeynaa marka aniga waxaan ka hadlayaa that is my life kayga inta badan ka hadla way aragnimadeedii khibrada qisadana qissa shaahidkeedii dadkii goobjoogayaasha sheekhuna waa jooga ilaahay khayraasiyo maalin hore buu yani namartiqaaday safiirka qadar oo casho u sameeyey culimadii aan oo isugu yeernay meesha sheekh Siraaj iyo walaalkeen Luqmaan iyo asxaab badan uu sheegay wuxuu yiri safiir oo Cabdisalaam miyaa isla joogtaan ha Cabdisalaam min zamaan isna qaar wuxuu yiri gabar qurux badan baa siiyay uu igu diiday oo ficlan kuma diidinay hooyaday baa la tashtay sheekhan uu maad umuman aad baan gabadha u jeclaa laakiin ugu dambeyn mis'almatay maanan is'alfa waa ku soo koobaya ariga marka wuxuu yiri Cabdisalaam oo arigan buu yiri Sheekh Cabdilshiid malaha waxa kugu dhacay mayl nafsi af carabi waa bimaana waxa u janjeertay oo niyadaadii qalbigaagii u raacay gabadha sheekha qaraabo way waxaan ku yiri sheekhay waxaan rabaa sheekh umalna inaan weydiiyo adigana ku weydiiyo ma waxaan qaataa gabadhaad isiisay mise tan hooyaday maxaan sameeyaa Sheekh Cabdirashiid ku hormaray sheekh umalna isagana waxaan weydiiyay Scandinavianka Norway isagoo joogan Baltog barnaamijkaas la yiraahdo waagaas adii malaha waa yareed aad baan ku weydiiyay Norway uu joogay waliba sheekh ilaahay khayraasi sheekh umal sheekhna al-faadil marka Sheekh Cabdirashiid wuxuu yiri tan yani hooyada ba mar walba ku baraka badan mar walba iyada teeda ilaahay rahmaanka kuguma qadinayo tawakkal ala Allah sheekh sidaas isku macsalaameynay waxaan imaaday xaafadayda laba rakaco kala tukaday habeenkii buu baaltooga soo galay sheekh umal isagoo Norway joogo yarka barnaamijka daadihinaya baan luuqa u galay Allahumma barik lana fi luqina ilaa luqyadeena noo baraka waa weydiiyay waxaan iri sheekh umal baan weydiiyay sheekh umalow he ممكن أسألك حاجة تفضل وحنيرين هو يدي قبر بيسيسي شيخين أنا قبر بيسي محان سمية وحو يري دادكو دم فتوى داس ويدوبانتها وحو يري هدي آد قرستيد مدي آد جعلاتي ومركي هورا آد إسلاها داشين فبيها خير وبركة يعني دينة إسلامك ما قبتو معناه إنها هوية أدكو عاسيسي وهداد قرستيد مدى أدربست oo qalbigaaga u raacay bimaana meeshan waxa ku jiro in yani aan sheegayno wax la yiraahdo jacaylka inuu jiro iyo rabitaanka laakiin kan hadda ma aha am talking me qasana ka hor kan hadda ma aha runtii waa israaciyaaniga waagaas sheekh umal wuxuu yiri kan hooyadaadana haddii aad gabadhii hooye ay keentay oo aadan arkin oo aadan la haasaawinna qaadataa duca waalid iyadana kaba sii fiican beed idan maxaan qaatay taladii sheekh umal wa ficlan kumana khasaarin ilaahay wuxuu qoray inaan Dubai soo maro hooyo shopping ii samayso hooyada iyada ii guurisay si kala hadaan u dhigo I was 15 years dadkan international community hadayna maqlaan waxay leeyahay 15 years ma u guurinaysaa diinteena islaamka qabto I'm not talking gabadha aniga age-kayga 15 iyo 16 ay markaan guursanayay oo ficlan alxamdulillah wiilkayga urudkayga maanta dugsi sare ayuu Turkiga ka dhiganayaa which means waxa way saddex wax bay yiraahdaan Soomaalida wiilkii dhale walaalkii dhale iyo wadkii dhale marka أنا ولا الكيدلة بان ملها أحد. wiilkii waa isla egtihiin عموما وصوبحي قبدي حتى ما أركن أن مندرة أو قتجي وحلي هبينك أروس كادس أركيسان هبينك أروس كم جرجي مادنا لبركة عنتو كذي وحنا كدو عستي دعاء عجيبة أيوش اللي يرضى إني
ay ka faa'iidaystaan qisadayda oo ah allaahumma ikhtar lii walaa tukhayir lii baan ku ducaysan jiray. ilaahow allaahumma allahayow hee ikhtar lii aniga yacni ii door. ilahay hadduu wax ku dooro ustaadii miyuu ku qadinayaa? bilaahi calayka rabu lciza jala jalaalu khaaliq alkhalq ummaddaas oo dhan kownkan axad ka abuuray miyuu ku qadinayaa? aniga adiga mama naqaano xaliimada joogta london iyo xaawada joogta xamar iyo midda joogta hargeysa iyo jigjiga iyo nairobi. we don't know midda khayrka noogu jiro. kadalika gabadha faaraxa jooga london iyo axmedka jooga maraykanka, kan carabaha jooga iyo kan etoobiya, ma kala garanayso midka. marka ducadaasaan ku ducaysan. ducadaasna waxaa i baray nin caalima sheekh cabdirazaaq albadri la oran jiray, nin caalima weeye, wiilkiisa hadda maanta joogo. I wish isaga ugu dhintaan u malayna, allah yarxam, ma hubo. marka ducadaasuu i baray anoo kacbada dawaafayo. weliba markii arrintaa la ii sheegaan cumrada aaday inta aanan dubay soo marin, aan beytka ilaahay kusoo dawaafay oo idhi ilaahayow laba arrinoo culculus baa i hortaalo, mid qalbigayga raacay, midna duca waalid waay. kacbada markaasuu i arkay, wuxuu yidhi yaa waladii, wiilkaygiio hee mumkin acallamaka duca ma ku baraa. markii hore ma ogeen, waa dambe adreskiisa u isiiyaan waxaan ogaaday cabdirazaaq ibn cabdilmuxsin albadri aabihii inuu yahay. waxaan ku yidhi ha, anoo ilmeynayuu arkay kacbada haysto, maxaa kugu dhaca? qisadaan u sheegay, qalbigaygana halkaasuu raacay. dugsi saraan ku jiraa dalka masar qaahira. hooyadayna sidaa bay tidhi. wuxuu yidhi labadoodaba ducadana ku kala saaraysa xifdi. min maalinkaas kacbada anoo taagan baa ducadaas xifdiye. wa atamanaa inay dhallinyarada iga faa'iidaysan. allaahumma ikhtar lii walaa tukhayir lii. ayuu shaashadda inaad soo saartaan. ilaahow ii door adiga, aniga ha iga dhigin qof wax doorto, laanna ma kala dooran kari. tii hooyaday, tii sheekh cabdirashiid, tii sheekh umal, tii sheekh hebelow, tii doctor hebel, maxaan ku raha injineer hebel, ma garanayn. markaasaan ku ducaystay, ilaahayna waa i waafajiyey. waxaan xasuustaa habeenkan guursanayey, arrinta cabsidan ku daraya, aan commenti garanaya, $50 jeebkayga ku jiray. gabadhana intay joogtaa mandheera fiiri, in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadlihi. ficlan waan arkay, waan practice gareeya. hadday ceer yihiin ilaaha hodan ka dhigayo. habeenkaas ay hooya tiri maraykan iyadoo joogta ii soo dirtay $50, toddobada iskaga bixi. yaa akhi, qof miyaa maanta $50 toddobada iskaga bixinay? aan gashtay jeebka. maxaa ii hor yaalla? habeen jimce ahayd, aroos markaan ahaa. wallaahi yani xaqiiqda ilaaha og, markaana xasuusta waan ilmeeyaa. habeenkii waxaan u dhaxeeyey yani jimcaha anigoo aroosoo da'yara, iyo kadalika sidoo kale anigoo jimcaha ku qoran mandheera masaajidka ugu weyn, oo weliba kor aan ka akhriyey. waxaan akhriyey ibraahim adduweyshi muxaadaradiisii almaxruumuun baan ka hadlayay. marka xifdintii waxaan ku mashquulsanaa maskaxdayda oo dhan berritoo leh. waxaa la yidhi reer mandheera ninka arooska ah ayaa jimcaha ku qoran, isagoo aroosa, anigoo aroosa ku qorna. marka dhallinyaradaan rabaa inaan u bidhaamiyo, from $50 oo la yidhi iskaga bixi toddobada bilaahi calayk, iyo ilaa iyo hadda inta u dhaxaysa naaw oon kula hadlayo, wiilkaygii iyo reerkaygii ay degan yihiin dalka Turkiga, meeqa sanaa u dhaxaysa intaas uu dugsi sare ku jiro. waxaa i soo martay 13 cumro, mar oon cumraystay, bimacnaa maadaama masar aan deganaa, marna waxaan ku tegi jirnay marna diyaarad, marna berri can dariiq. waxaan mari jirnay meeshan kanaalkan caqaba la yidhaahdo. 13 maruu ilaahay qoray. waa duca waalid inaan cumraysto. 3 marna aan xajiyo. mar hooyaday baan la xajiyey,